kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. galab wanaagsan daawadayaal. maanta waa maalin jimca, bisha Februaayo ay tahay 23. waxaan halkan idin kusoo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan oo idinla socodsiinayo anigoo maxamed xasan. maalgelinta dugsiyada, xabsiga dhalinyarada, maalgelinta korontada iyo hoy cusub oo dugsiga ama iskuulaynta ah. taas waxaan qodobadii oo kooban haatana waa kuwan iyagoo faahfaahsan. maalgelinta dugsiyada, waaxda waxbarashada ee gobolka Maine ayaa waxay iyadu bixinaysaa maalgelin cusub si ay gacan uga siiso ballaarinta tirada dugsiyada bulshada, kuwaas oo iyagu ah kuwa loogu talagalay in ay keenaan adeegyo taageero ah oo qoyska oo dhan la gaarsiiyo. dabaqaabkan dugsiyadu waxa ay iskaashi la sameeyaan hay-adaha maxalliga ah iyaga oo keenaya adeegyo ku saabsan daryeelka carruurta, daryeelka caafimaadka iyo weliba makhaasino cuntada dadka qoysaska tabarta laga caawiyo. hadafkuna wuxuu yahay in ardayga baahidiisa oo dhan la daboolo. haddaba deequhu waxa ay ka caawin doonaan bixinta kharashaadka iskuduwaha dugsiga iyo weliba iyagoo la shaqayn doona si loo aqoonsado baahida iyo samaynta iskaashiga kooxaha maxalliga ah. Maine waxay hore u lahaan jirtay haddaba 3 dugsi oo dugsiyada loo yaqaano nooca dugsiyada kuwaas oo iyagu helay maalgelinta gobolka, waxaana la rajaynayaa in lagu daro ilaa 5 dugsi oo cusub oo noocan oo kale ah. xabsiga dhalinyarada, waaxda asluubta ee gobolka Maine waxa ay sii wadaa dadaalkii ay ugu jirtay furitaanka xarumo yaryar oo lagu bedeli doono Long Creek oo xabsiga dhalinyarada ee ku yaala magaalada South Portland. celcelis ahaan sanadkii hore waxaa ku jiray xaruntan Long Creek 28 dhalinyaro ah maalin kasta. taasi waxay haddaba ka hooseysaa heerkii ay taagnaayeen maxaabiistu ka hor intii ayna dhicin musiibadii COVID-19. waaxda waxaa sanado badan uu cadaadis kaga imanayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo weliba xeer ilaaliyaasha gobolka oo iyagu doonayay inay xidhaan. haddaba saraakiisha ayaa waxay sheegayaan in Long Creek ay la daala dhacayso shaqaale la'aan, iyadoo shaqaaluhu inta badan lagu khasbay inay shaqeeyaan saacado dhaadheer oo ka badan xilligii loogu talagalay. maalgashiga korontada, warbixin cusub ayaa waxay sheegaysaa in gobolku u baahan doono inuu sameeyo maalgashi la taaban karo oo ku saabsan haddaba korontada, iyadoo Maine iyo New England ba guud ahaan aad iyo aad looga soo dhoweeyey tamarta qorraxda laga dhaliyo iyo tan iyaduna teknolojiyada cusub ee sida baabuurta korontada ku shaqeysa iyo matoorada kululaynta guryaha iyo weliba tamarta laga dhaliyo dabaysha. haddaba New England waxaa laga yaabaa ayay daraasadu sheegtay in ay u baahato inay ku maalgashato ku dhowaad $1 bilyan oo kaabayaasha isku gudbinta korontada sanad walba ilaa iyo laga gaarayo sanadka 2050 si ay wax uga qabtaan baahida korontada. daraasadu waxaa kaloo sheegaysaa iyaduna in haddii gobolku ama dadweynuhu ay yareeyaan korontada, baahida loo qabo xilliga korontadu ay ugu isticmaalka badan tahay, inay suurtagal tahay in la dhimo kharashaadka ilaa iyo $1 bilyan oo sanadkiiba. saraakiisha deegaanka iyo kuwa gobolkuba waxa ay markaa sheegayaan in taasi ay suuragal tahay haddii lagu gaari karo iyada oo loo marayo kaydinta tamarta, kaydinta baytariyada iyo weliba dhimista korontada xilliyada isticmaalku ugu badan yahay si loo dhimo isticmaalkeeda. Maine haddaba waxa ay dejisay yool ay doonayso inay kaga baxdo korontadan hadda laga dhaliyo waxyaabahan la gubo, iyada oo la doonayo in 100% loo guuro tamarta lasoo cusboonaysiin doono ama lasoo cusboonaysiin karo marka la gaaro sanadka 2050. hoyga iskuulaynta ama dhaxanta laga dugsado, hoy cusub haddaba oo la isku kululeeyo oo ku meel gaar ayaa waxaa laga furay magaalada Lewiston kadib markii golaha deegaanka magaalada Auburn uu ansixiyey xeer cusub oo arrintaas ku oggolaanaya inuu ka qayb qaato. hoyga waxaa maamulaya Cadence Food Pantry
iyadoo oo lagu bixinayo $125,000 oo ay qaybsanayaan labada magaalo ee Lewiston iyo Auburn. Hoygu wuxuu shaqayn doonaa habeennimadii 10 ilaa iyo 8 subaxnimo, wuxuuna sii jiri doonaa u shaqayn doonaa ilaa laga gaarayo bisha Abriil 7. Hoygan wuxuu ku yaalaa kaniisadda Calvary United Methodist ee ku taala Lewiston, oo iyadu qaadaysa ilaa 100 qof oo martiya habeenkiiba. Kaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship. waxyaalo badan ayaa iska beddelaya Maine Care. ka warhay si aad caymis u hesho. iska sax ciwaanka iyo lambarkaaga adiga oo ka gelaya maineconnection.gov.